waxaan wadooyinka ka cabanaya taxadka looga hayo gobolka Doolo gaar ahaan qabiilka Majeerteen oo tacdiyo badan lagu sameeyay markii dambana ay dhahan ciidanka liyu booliska waa inay ka baxaan magaalada Wardheer kana guuraan Puntland tacdiyadaas oo loo goystay ayaa waxa ka jira mudaaharaad laga sameeyay santarka Balwanaag waa kuwan odayaal dhaqameedkii waraysanayno maxaad ka cabanaysaan waxaan u banaanbax weeye meeshan waa banaanbax nabadgelyo waxaan ka soo banaanbaxnay cadaalad darro waxaan u dhahay qabalaha koobaad oo Doolo magaalada Wardheer qabalaha labaad oo Wardheer oo Doolo baan nahay waxaan tirsanaynaa ka cabanaynaa cadaalad darraan ka cabanaynaa suldaamadii baa xirxiran aqoonyahankii baa xirxiran ganacsatadii baa la xirxiray wax ma ay dilin wax ma dhicin wax ma diidin waxay ku xiran yihiin lama garanayo waxaanu ka cabanaynaa maamulka heer degmo iyo heer gobol waxaanu ka cabanaynaa banaanbax nabadgelyo weeye waxaanu doonaynaa in waxa la yidhaha cadaalad aan helno intaasaan u soo banaanbaxnay dhammaan odayaashu waxay ka cabanayaan dhibaatada ka jirta gobolka Doolo waa kuwan haddana ayagiyo afkaartoodii ka dhiibanaya waxaanu ka cabanaynaa cadaalad darrada Doolo taalla oo ururkii heego oo nabadiidka oo ilay uu ka tegay ay ku wadaan qabalaha labaad ay ku wadaan banaano mudaaharaad ka nahay mana doonayno nabadgelyo darro ma doonayno liyu boolis ciidamada liyu boolis oo doonaya arrimo ay huwan shaatigii ilay nabadiidka huwan ayaa waxay rabaan inay beelaha iyo dadka isku dhuftaan mana doonayno deegaanka kilinka shanaad wuxuu ka tegi waayey waa ururka liyu boolis waana cadaynaynaa waana sheegaynaa waana cadaynaynaa waxay ku soo duuleen xaafadihii dadkii odayaashii magaydadii nabadoonnadii isimadii waxay dhaafayaan malaha waana aragnaa waana u jeedaan ummadduna waa aragtaa dawladda Itoobiyana indho dheer ayay u leedahay ummadduna waa aragtaa annaguna innaha kama qarsan doono arrinta dhammaan odayaasha santarka Balwanaag ayaa mudaaharaad xooggan samaynaya waa kuwan haddana afkaartoodii bay sii dhiibanayaan waxaan weydiinayaa meeshan cadaalad darrada laga wadaa dadku waa la isku weynayaa dadku waa la isku horgeynayaa inuu islaayaa la rabaa taas waxaa uu daliila habeen hore dadka asagoo iska degan isagoo sooman isagoo afurahaya baa u lagu bilaabay waa la laayay waa la dhaawacay xabisna waa loogu daray waxa iyagu biiyeen bay ku waxaynahayaan dadka waa la rarahayaa waddanka waxaa taallay herbada ha guuyo herbadina ma guulahayo dalka waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa sinaan baan rabnaa midnimo baan rabnaa haddii aan kaa weyno waa shaqaynayna dhammaan odayaasha ku nool santarka Balwanaag iyo bulshooyinka ku nool santarka Balwanaag waxay ka cabanayaan cadaalad darro iyo sinaan la'aan loo geystay waa kuwana ayagoo shucuubtoodii muujinaya rag iyo dumarba waxa weeyaan waxay ka cabanayaan dibaha iyo waxa weeyaan loo geystay bay ka cabanayaan waxaweyaan dhibkaas oo ka jira santarka Balwanaag iyo degmada Wardheer gobol gaar ahaan gobolka Doolo waxaweyaan banaanbaxyadan ay ku muujinayaan dhibaatooyinka ka jira waa kuwan hooyooyinkii aan waraysanayno maxaa ka cabanaysaan dhammaan dhibaatooyinka ka jira gobolka Doolo bay ka cabanayaan bulshooyinkii santarka Balwanaag waa kuwana waxaweyaan dhibaha iyo dhibka tacadiga loo geystay bay ka cabanayaan waa banaanbax waxa weeyaan halkaani waa santarka Balwanaag maxaa ka cabanaysaan hooyooyinkiina maxaa ka cabanaysaan